dowladda hoose ee magaalada Burco ayaa saaka sameysay hawlgal ay ku burburinayso dhismayaal ka kooban guryo iyo sidoo kale kaalmo shidaal oo si sharci darro ah loo sameystay. Ololahani ay sameysay dowladda hoose ee degmada Burco ayaa waxa horkacay duqa degmada Burco xigeenkiisa iyo sidoo kale qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Burco. Ugu horeyntiiba waxaa halkaasi ka hadlay maayirka degmada Burco Maxamed Yuusuf Cabdiraxmaan Muraad isagoona digniin u diray cid kasta oo ku hawlan dhismayaasha noocan ah waxaana ka mid ah hadaladiisii sidaatan. reer Burco nin kasta oo la xajecla ka haysan magaalada bilicdeeda iyo quruxdeeda inaynu wada ilaashano isla markaana ay mamnuuc tahay dhismayaalka sharci darrada ah in magaalada laga dhiso. qofka ma jeclin anagu ka dowlad hoose ahaan inaanu khasaareyno ma jeclin, laakiin marka uu dhismo sharci darra magaalada ka samaysto oo aanu dowladii hoose iyo ciddii shaqada ku lahayd aanu uga haysanin wax maartay ogolaansho ama ruqsada wuxuu la kulmi doonaa tacabkiisa in la khasaareeyo oo la dumiyo. waxaan uga digayaa dadweynaha reer Burco magaalada inaan ruqsad wax looga haysto dowladda hoose mooyaane ciddii wax ka dhista magaalada ama geer ka dhista ama muxuu ahaay kure xoogle geer ka dhex dhista ama kaalin ka dhista ama meel maartay waxay doontaba haatay wax dhismaba lagu sheego sidaas ka samaysa waxay la kulmi doonaan waxaan raalli ka ahayn bay la kulmi doonaan. sharcigu wuu fudud yahay maanta haddaad doonto inaad wax samaysato wuu fudud yahay inaad hesho ruqsad haddii dhulka aad wax ka samaynaysaa uu yahay dhul saxa. marka banaanka ma arkayo maxaa babaxi saaraya nin baa laga sheegay adigoo helaya ruqsad aad ku dhisato dhulkaaga sharciga ah ee adigu aad leedahay ee aan wadada ahayn maxaa kugu wata in sharci darro aad ku dhisato oo hadhowto aad ganaax la kulanto in lagaa dumiyo aad la kulanto maxaa markaa aad ka helaysaa. waxaan kusoo gabagabeynaya dadweynaha reer Burco ka digtoonaadeen arrinka caynkaas. ugu dambeyntii waxaa hadalka soo afmaray maayirka xigeenka degmada Burco iyo sidoo kale qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Burco iyagoona fariin muhiim ah u diray bulshada weynta ku dhaqan gobolkan Togdheer waxaana ka mid ah hadaladoodii sidatan. dadka sharci darradana waxaan leenahay hadday mar iyo laba kuu suurto gashay ogow inaan mar saddexaad ku suurto gelin waxaad mudan doontaa cawaaqib xumo aad in badan naasnaasiso. talabaad waxaanu leenahay dhismaha sharci darrada ee la dhisaayo waxaanu leenahay la joojiyo. magaxa wadooyinka yaalla haddii la guran waayo laba shay baan loo qaybin doonaa ma guri doonaa xabaalaha waanu ku seesaynaa waanu garoomadana waa ku dhisaynaa haddaa gura. Cabdiraxmaan Ciise, telefishinka caalamiga GTN magaalada Burco.